720 maalmood ee la soo dhaafay xiisad dagaal iyo huburursi ka socday Boosaaso xudunta dhaqaalaha ee Puntland ayaa ugu dambeyn maanta isku bedelay gacan ka hadal dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland taas oo ka dhalatay xilka qaadis la xiriirta hay'adda BSF oo madaxweyne Dani uu sameeyay 720 maalin ka hor inta la og yahay khasaare dhimasho dhaawac burbur iyo gaadiid ciidan oo la kala qabsaday ayaa ka dhashay ilaa hadda dagaalka dad badan oo ku dhaqnaa xaafadaha magaalada ayaa barakacay sida ay xaqiijinayaan ila xoogaan ah cidda bilowday dagaalka iyo sida uu ku qarxayba waa la isku khilaafsan yahay darafyadu sida ay kala sheeganayaan balse waxa aan shaki lahayn waa in xukuumaddu ay hore u cadeysay inaysan jiri doonin ciidan ku wada sugan magaalada iyo hub gacanteeda ka madax bannaan saacadihii la soo dhaafayna ay kordhisay howlgalladeeda ciidan 48 saacadood ka hor waxa ay ciidanka dawladdu bilowday u diyaargarowga duulaanka sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugan Boosaaso sababta ugu weyn waxa ay ka dhigayaan in ciidanku ay xidheen dhammaan jidadka muhiimka ee gala xaafadda ay ku taallo xarunta BSF ay doonayso dawladdu inay la wareegto dadaalo la xiriiray in dagaal laga baaqsado qaybtiisa koobaad ayaa fashilantay sababtuna waa in labada dhinacba ay ku dhagan yihiin qodobadii ay hore u kala joogeen iyadoo ay caddahay in go'aankii isimadu uu noqday mid shaqayn waayay noocyada hubka wax lagu burburiyo ayaa la isku adeegsaday kaasoo sababay in xarumo ka fog aagaga ay dhinacyadu lugta isku wajaheen uu gaaro ilaha dhaqaalaha ayaa ka mida goobaha badan ee halista wajahaya xilligan ciidamada taabacsan agaasimihii hore ee BSF kuna sugan xarunta hay'addaas ayaan ka bixin dhammaan goobihii ay ku sugnaayeen maalmihii la soo dhaafay waxayna ila wargalay caddaynayaan in 10kii aroornimo ee saaka ay aaggaas ka dhacay iska horimaadyo hubaysan mid ka mid ah gaadiidka ciidamada dawladda ee gaar ahaan kuwa daraawiishta oo ka mid ah kuwa laga qaaday jiidda hore ee Tukaraq ayaa galay gacanta ciidanka ku jira xerada BSF inkastoo saraakiil dawladeed beeninayaan sheegashada garabkaas haddana dhinacyo ka madax bannaan ayaa xaqiijinaya runhaanshaha gaarigan dagaal labada dhinacba inay ku dagaalamaan gudaha Boosaaso waxa ay ku tahay wejigabax iyo arrin laga baaqsan karay magaalada oo dhaqaalaheedu hooseeyana saameyn xooggan ayuu ku yeelan doonaa dagaal dambe oo ka dhaca iyadoo ay weliba dad badan guryahoodii ka baxeen sida ay caddaynayaan oo ay tahay cabsida dagaal kale ay ka qabaan ma jiraan dadaal hadda socda oo looga baaqan kara dagaal dawladduna waxa ay mar kale isku diyaarinaysaa guluf xooggan oo ku wajahan xaruntan BSF sida ay kula wareegi lahayd dagaalka oo sii daaha iyo xaaladda magaalada Boosaasaba halis weyn ayay dadku ka digayaan oo ku wajahan in dagaalkan uu noqon karo mid saameyn baan reeba shirkadda Somnet Export ee ku taal dalka India waxay ku soo dejinaysaa khamiisyada shaararka iyo saraawiisha kabaha isbarbarka bajaajyada dawooyinka wuxuu faahfaahin ka xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda